وايدا ما تاي قارس نو قارس فام نري نو قارس تنبونا ما ذي ولا سكين علينا يا سومالي مريوين سومالي مريوين ساسا نوضع إلا فاطمة يجي فاطمة يجي موجودة وحويان عاصم كبرى صنا دول بالغ عاصم كبرى أنتي شايفة كذا قرعيست ويدا قبل أنت قرعيو وحويان ماذا حاصل الله يقول فطي وأوتشيدان وعرفتان نبركو انتو لاقي هاي واكو ما دي قفكا يقول دفتي واني كان فرت عروره ودلاي ما وجهدان نبركو انتو لاقي هاي اذا ندعوودو يا اذا كدعوودو midna ma jiro adeerkay bay wasay anigoo 3 sano jira ilaa iyo 7 jirkaygina iska ka haysan jiray aabay walaalkii ma fahanteen marka Soomaaliyay waxba qarin mayno qariski wuu naga soo dhamaaday qariskii waxaan doonayaa halka alaab soo ibsadan sidaa u seexdo dibadda seexdo ilaa waxa weeye way igu kacay nabarkii way igu kacay marka waxa weeyaan alaasan ku guraa waa geerashkaygii baan joogaa saasaan u habaystay hooyo kaligeeda carruurteeda alxamdulillah 7 carruur aan haystay ilaahay rag baan dhalo raggaas nabarkayga ka jawaabaya marka saasaan u wada qaawanahay halkan aan soo wada gelaynaa waan wada qaawanahay waxa weeyaan anagoo nala qaawiyay kan marwada wahaa bay dilay ayaan guriga u fadhiyay marka waxa weeyaan aan idinka dabageeyo aan waxaan doonayay halkan inaan soo galay waan idinka dabageeynaa soo wada bata horta soo bata le life kana noqono wixii waskaga kay wada dhex daateen shabada soo agogtaa saasad wax u qarisaane Soomaali mariyooli waa soo agogtaa Sooma waana dulmana maya ma jirto soo bata geerashkaygii baan jooga gaaladaas ay siisay mushin Soomaali siiye baasgaladiina waa kuwa ni Soomaali don't care baan ka ahay kuwa ni Soomaali hay horta waxaan doonayaa inaan reasonkan timahayga u xiiray ee qaawiyay anigoo daadaa joogay qaawiyay life-ka soo fadhisay inaan idinka waramo horta waan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa aniga magacaygu waa Khadra Jaamac Cumar waxaan ku dhashay magaalada Burco gobolka Togdheer gaar ahaan xaafadda Afgooye nin Jaamac Cumar gawadhi la yiraahdo ay dhalay oo qaadla oo Abubakar Axmed oo reer Yuusuf Cabdiya oo reer Abubakar Yuusuf waxa weeyaan ina Cumar gawadhi inantu dhalay baana waxa weeyaan aniga aabahay anigoo yar buu dhintay waxa weeyaan aabahay anigoo ka nabar ku yahay ayna darwaka anigoo yar baa aabahay dhintay marka waxa weeyaan ninkii la rabay inuu koriyo ee adeerkay ahaa ayaa i kufsaday adeerkay aabahay la dhashay weeyaan waxaan meesha la soo fadhiyaan idin sheegaya Soomaaliyay isaga isticmaali jiray adeerkay aabahay la dhashay marka ilkaas iga daateen ayaa la iga kaxeeyo islaaneedada baa iga kaxaysay ilaa intan yaraa qoodhiisu igu ababiye isaga ay wasi jiray waa aabahay walaalkii marka waxa weeyaan Soomaaliya qaris waa dhamaaday kan marwada u noqday anigoo yar burcay guursadayna nabarkaas uu igu dhuftay isagoo cabsan marka waan dulmanahay laakiin rag baan dhalay waxaan haystaa imika ilaahay ay daaya 7 weeyaan carruurtaydu waxaan joogaa wadanka Faransiiska gaar ahaan wadanka xaafadda lehda Poitiers baan deganahay kaarteyga Poitiers marka waxa weeyaan bugaag baan qoray history-gayga waa la iga qoray dawladda waa u sheegay in anigoo yar waxaan ku rilay wasay wax qaris ma jiro bugaagtaydii waa la qoray la iga qoray qaarna waa diyaarsan yihiin marka waxaan idin sheegayaa hadda dadka la yaabaysaan aniga bay arka ninka sida ii dilayna waa ninkan carruurta u dhalay ee aadan madoobe ee reer xaaji ee reer xirsa cali
inay dirislaan gadhe ee sakhraanka ahaa ee reer burco dhami garanayaan marka horta warna yuusa nabdhaha warna yuusa yeerashkan ka bax warna yuusa horta warna yuusa ayaan idiin wadaa shalay halkaasaan soo galo shalay timahayga halkaasaan ku xiiray sanad walbana waan xiiraa hooyaanahay qorraxdaasaan joogaa madaxu way igu soo kacaan nabarku markaa waxaan idiin sheegayaa rag baana laayay rag baana wasay rag baana qaawiyey rag baa sidaa noo galay rag baana rogay marka waxa weeye annaguna raggii rag baanu u dhallay rag baanu u dhallay aye meeshaan doonayaan la baxo geerishkana ka baxo soo xidhanaya geerishkaygii ma ujeedaan sida alaabta u habeeyey ma ka hesheen inaan fariidahay alaabtii samirkaan xiraynayey alaabtii qaboobaha alaabtii samirkaan carruurta usoo saaray hooyaanahay 7 ciyaalan haystaa waan isku filanahay naagaha ooyaya ee meelaha ka ooyaya ma ihi jiimkaan galaa qudaartaydaan cunaa fitamiinadeydaan cunaa laakiin nabarkii madaxda way igu soo kacaya marka waxaan idiin sheegayaa Soomaaliyeey inaan nagan waxa weey nala dulmay gabadh dulman baan ahay victim baan ahay waan ooyaya dan ma la shaqeeyo la siltibla waan ooyaya waxa weeyaan laakiin rag baan dhalay inaad ka haduu yaari waayay waxa weeyaan inankayga yaari doona inankayga fermez la porte la siltibla inankayga yaari doona saasaan u wada qaawanahay waana ka waxa weeyaan naag la wasay yaraanteedii la wasay kii cid u xigay kayeelka ka dhiganaysay aabaheed marado aabahay dhintay adeerkay laxmi dami adeerkay meel xuna la ku dhig balaaya kugu dhacdo waxa weeyaan aniga noloshayda saasay ku soo bilaabantay noloshayda maymkana waxa weeyaan waxaan doonayaa ristri sameeyo ristri aan la wadaago dadka u sheegay la amsnaan maayo mara weynu jiid maradiina dhigay maradiina tuuray maradiina marka waxa weeyaan naag la dilay oo maxay ahayd carruurteedii iska korsanaysa oo miskiinada oo munaafiqiin heshay xaqii aabahayna iyagaa cunay aabbahay jaamac markii la dilay xaqiina iyagaa cunay oo qaybsaday waxa weeyaan Soomaaliyeey aniga aabbahay waa la dilay jaamac margawadhi waa la dilay haysan maayo waan lugeynaya maanta gaadhina ma rabe waan lugeynaya waan idiin warramaya horta waan idiin sheekaynayaa life-ka ma aqaano laakiin waan soo gelaya waxa weeyaan anigoo yar ninkii kufsaday waa idiin sheegay dee iska keenaysan jiray iska kay macmiil dee aabbahay buu ahaa oo kale waa idinka yidhaahdaa naaguhu been bay sheegayaan aniga yaarka oo reer burcaa oo ina jaamac mara oo lay garanayo oo ina geesbuciiro ninkii qaadlaaha ay dhalay oo ay garanaysiin habar jeclay ragmo habar jeclay ciyaalkaad wastaan habar jeclay anaa runtiina sheegaya habar jeclay carruuraha erar baad wastiin habar jeclay run baan sheegayaa habar jeclay axmed faarax cabdulle ciyaalkay wasaan aabbahay markan waayay adeerkaygii aabbahay la dhashay ayaa aniga isticmaali jiray ayaa la qarin oorihiisa madow xun oo dheero uraya anigoo ciyaala waxba garanay anigoo yar wuxuu samayn jiray si alla siduu doono ilaahay waxaan kuu baryay inaad googo'do ilaahay waxaan kuu baryay inuu covid-19 kugu dhaco ilaahay aamiin dhaha inuu ninkaa madaxa jabiyey isagoo cabsan baan ka cararay labadaa nin ma aniga dhibka igu sameeyey iminka dhib kale ma qabo waxaan idiin sheegayaan idinla wadaagayaa dhib kale ma qabo carruurtaydan iska korsadaa iska haystaa
waddanka faransiiskaan ku noolahay alxamdulilah qoraxdaasaa ka dhacaysa waad u jeedaan qurux markaa waxa weeyaan baahi ima hayso alxamdulilah rabbilcaalamiin anigaa cagahayga ku yimi anaa soo tahriibay anigaa noloshayan lifeka samaystay waxa weeyaan aan idiin sheegayaa habar jeclo anigaba hay arkeen iyagaa i wasay iyagaa madaxay jabiyey iyagaa i qaawiyey iyagaa dharka naagaa ka furta waa tuug habar jeclo waa tuug habar jeclo ceebtooda halka soo dhigaya oo wallaahiya oo inaan soorilay odhan oo markii ninku nabarkaa igu dhuftay nabarkaa ninku markuu igu dhuftay waa ninkan carruurta u dhalay eega si fiican u eega saasaan timaha iguu xiiray ma u jeedaan nabarka ma aragtaan wakaa waar nabarka ma aragtaan intuu leegyahay wakaa waa mid nabar igu dhufta iyo midna wasay waa aabbahay walaalkii ayaa iska kahaysan jiray anigoo yar oo ciyaala kii dambe calafku ii geeyey nasiibku ii geeyeyna 4 carruura markaan u dhalay anigoo weliba umul baan ahaa markaa xaafadda way garanayaan burcay ahayd xaafadda gahay ahayd waa inay dirislaan gadhe waa aadan madoobe waa la wada garanayaa wuu jabiyey halkaasuu igu dhuftay umul baan ahaa 2008 shalay waa anigii idiin sheegay 2008 ayay ahayd 2008 bishii 3aad 14keedii ma ilaawin rilambar sabti bay ahayd isagoo cabsan marka waxa weeyaan anagu dumar la laayay la kufsaday waad arkaysaan iminkan intaa in dilkii socdo Soomaali kale ma jirto dadka lama ceebeeyo dad wanaagsan baa jira marka waxa weeyaan aniga intii magacayga iyo muuqaygaba taqaana waan salaamayaa horta imka qorraxdu igu soo kacaa nabarku waana ladanahay qurux baan u go'ayaa carruurtaydi way ii fiican yihiin waan shaqaystaa iminka carruurtaan u fadhiyaa oo iskuuladii waan maangeyno waan iska haystaa carruurtaydii alxamdulilah laakiin ciilkan sanad walba la xiiranayo ee qorraxdaa dhacaysa aan isu xiirayo waa inaan idiin sheegaa haye nin baa i jabiyey madaxa i jabiyey oo wax allaaliya waxaan u geystay aanay jirin wax allaaliya waxaan ku sameeyay aanay jirin wax allaaliya waxaan u geystay aanay jirin marka waxa weeyaan aabbahay igi dhintayna ilaahay ha u naxariisto aabbahay maanta hadduu nool yahay wuxuun buu ii qaban lahaaye ilaahay ha u naxariisto aabbahay jaamac margeesi buu ah marka waxa weeyaan anigu habar jeclay qaris ma jiro habar jeclay kuwa carruurtayda ilaahay dhaar waxaan ugu galay godobtaydaas hadhi mayso ninka madaxa saa ii jabiyey inaan idhaahdo inankiisa curad anigaa ku curtay inankiisa uu ku curtay inuu madaxa jabiyo saasaan ooyaya haa nabarkaasaa igu yaalla nabarkaasaa igu inteelada nabarkaygu ilaahay dhaar waxaan ugu galay habar jeclooy inan gumeed ciyaalkaad wastaan aabahay walaalkii baa wasay anaa kula soo hor fadhiya ay baa tahay adigune runtaan idiin sheegaya naagiyadoo yaroo 3 jira 4 jira adeerkeeda aabaheed la dhashay wasi jiray ilaahayna markii dambe sakhraan ii geeyey laba sakhraan mid madaxa jabiyey mid anigoo yari wasay runtaa la isu sheego marka waxa weeyaan noo qaris u dhamaaday habar jeclay qaris waa dhamaaday habar jeclooy ceebtiina dabadaan soo dhigaya inaan gumeed baa tihiin habar jeclooy sooftii waa kay habar jeclooy inaanu oyno anigu calay taxal buugaygii waan qoray anigu fariid baan ahay luuqadaan aqaanaa faransiiska buugaygii waan qoray mid kalena waa qorayaa marka waxa weeyaan weligay lifeka saan ku jiraya youtube-na waa samaystay khadra jaamac umar la yidhaahdo gala wax walba ku soo guraya waan u sheegaya
waan idiin sheegaya marka waxa weeyaan dadka inta dabayustaan oo dishaan oo qarisaan oo xumaysaan oo wastaan oo dishaan ayaa dhowta leeyahay wariga daaya garaacista